Marka hore waan idin salaamay walaalaha qaaliga ah. Waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak. Ramadaanka kii lagu barwaaqeeyo, keenii xanuunsan Ilaahay ku caafiyo, keenii hore u xumaa Ilaahay ku soo wanaajiyo, midkii dhibban Ilaahay dhibka uga qaado baan Ilaahay ka baryaynaa. Waxaan idiin wadaa hadiyad kale oo duco ah. Ducadaana waxaa ku ducaysan jiray xabiibkeenna rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayk. Ducadan ayuu ku ducaysan jiray. Adiguna haddaad ku ducaysato, Ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhiro iyo adduunba waa ku wanaajinayaa. Waa ducooyin aad u yar, aad bay u kooban tahay, aad bayna u fudud tahay, laakiin ciddii ku ducaysan lahayd baa la rabaa. Mar haddii lagu yiri rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ku ducaysan jiray, maxaad rajaynaysaa? Maxaad filaysaa inay tahay ducadaas? Duco loo dhiga miyaa jirta? Duco lamida miyaa jirta? Duco la qiima miyaa jirta? Walaal, ducadu marka waxay leedahay: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. bilan ay leedahay marka. Ilaahayow waxaan ku weydiisay cilmi naafica. Mar hadduusan cilmigu mid wax anfaca uusan noqon, adiga naftaada, dadka kale naafic hadduusan mar cilmigu noqonin, wax oo macnaa u yeelanaya ma leh, wax faa'iida uu leeyahay ma leh. Midda labaad waxay wa risqan dayiban, risqi wanaagsan. Haddii risqigaaga uu xalaal noqon waayo, cibaado kasta oo la timaado laga aqbali maayo. Sidaa la ajligeed waxa aad cunayso ama aad marinayso ama aad cabayso waa in Ilaahay kaaga dhigaa wax wanaagsan oo dayiba. Haddii risqigaagu dayib noqon waayo, haddaad soonto iyo haddaad salaadaba, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka aqbali maayo. Wa camalan mutaqabbilan, camal la aqbalo, taqabbal ah oo laga aqbalo Ilaahay weydiiso. Saddexdaas qaybood ayay ducadu ka koobanta, aadayna u yar tahay. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. qaybtaas saddexdaas qaybood ay iska saaran tahay. Haddii aad ku ducaysatana, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalayaa. Bisha Ramadaan baa lagu jiraa, 10ka dambe ku ducayso. Tahajjudka xilliga aad samaynayso ku ducayso Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cilmigaada naafic ka dhigo, risqaagana uu wanaajiyo, camalkaadana mid la aqbalo laga dhigo. Dhammaantiin waxaa idiin rajaynayaa khayr iyo barako. Walaalihiinna kalena la sii wadaaga. Waad mahadsantihiin.